Muqalkenan manta waa mid aynu ku istaagayno dhanka bad guys-ka. Dabcan in badan aynu soo aragnay sida la iskaga ilaaliyo hacking-ka. Muqalkenan waxaan soo qaadanaynaa sida hackers ku sameyn karaan websites u eg kuwa sax ah balse ay xogaaga ku xadi karaan markaad geliso macluumaad. Processkaas oo dhammaystiran aynu ku sharaxaynaa Muqalkenan maanta. Kasoo bilow si hackers ku sameeyaan websites been abuur ah ilaa sida ay xogaaga ugu tagayaan hackerska. Dhamadka muuqaalkana waxaan ku arki doonaa sida uga taxadiri lahayd in habkani ay xogaaga ku xadaan hackersku. Soo dhawaad dhalinyaro. intaynan gudagelin muuqaalkeenan xasuusnow kaliya waxaynu casharkan ugu talagalnay si aynu si faahfaahsan u fahanno phishing attacks-ka iyo processkaasi sida uu dhaco. waa sharci darro inaad qofku samayso phishing mana dhiirigelinayno in la sameeyo ficillo noocaasi ah. muhiimadda muuqaalkeenana waa kaliya inaynu wax badan ka ogaano phishing attacks-ka. tijaabadan aynu samayn doonaana waa kaliya macluumaad guud oo ah sida uu dhaco mana ahan mid detailed ah. Okay, waxaan muuqaalkeena ku soo qaadanaynaa samaynta websites been abuur ah oo la mid ah social media platforms-ka. tusaale ahaan TikTok aynu soo qaadanaynaa. qorshaheenuna waynu samayno website markuu qofku soo booqdo uusan ka garan kiisa saxda ahaa. sidaas inuu ku geliyo credentialskiisa kadibna markuu login dhaho waxaa inoo soo dirayaa credentialskiisa uu qofkaasi geliyay. oo sidaas ayaynu account-kii kula wareegi karnaa. waana mid ka mid ah hababka ugu badan ee lagu jabsado social media accounts-ka. Okay, ugu horeyn soo gal website-ka saxda ah ee login-ka TikTok sidaani ayaanu u eegyahay. marka tobanaan qaab ayaa jira oo aad ku koobi garan karto website-kan. haddii aad HTML iyo CSS iyo JavaScript ku fiican tahay si fudud ayaad ugu qori kartaa oo u design garan kartaa page-kan mid la mid ah. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad taabatid right click kadibna inspect kadibna soo koobi kartaa HTML-ka iyo CSS-kan. habkanina maaha mid perfect ah laakiin waad adeegsan kartaa. aad ayaan u badan yihiin habkaad ku koobi garan karto website. sidoo kalena waxaa jira tools khaas u ah oo lagu koobi garan karo websites-ka. markaad soo diyaarsato page-kii la midka ahaa TikTok ama platform-ka rabtay waxaanu samaynaynaa code-kii qofka isticmaalaha ah marka uu login dhaho inoo soo diri lahaa xogta uu geliyay. halkaani waxaan ku haysanaa HTML, CSS iyo JavaScript. waxaanu samaynay website leh login form balse aan adigu eekayn TikTok maadaama uu kaliya yahay tusaaleyn muhiim ah inuu ka dhigno mid detailed ah. ugu horeyn aynu raadino button-kan login. waa kan ku dhex jira form-kan. halkaani sida saxda waa serverka TikTok balse ma rabno oo waxaan doonaynaa in xogta uu halkan qofku geliyo ay inaga noo soo dhacdo. waxaan ku bedelaynaa file PHP ah oo inoo soo qaban doona shaqadaasi. tusaale ahaan hacking.php. kadibna faylkaasi soo furno. faylkan wuxuu qabanayaa shaqo simple ah. ugu horeyn wuxuu soo furayaa faylkan ku qori doono xogaa credentialka ah inoo soo baxa sida username-ka iyo password-ka la geliyay. kadibna waa uu save garaynayaa kadibna faylka uu soo xirayaa. ugu dambeynna wuxuu qofkii direct ugu sameynayaa ama dib u celinayaa page-ka saxda ah ee TikTok si qofku u moodo in isagu wax khalday ama internet ka xumaaday oo uusan uga shakin inuu page khaldan xogtiisa geliyay. Okay, haddii aad rabto inaad process-kan sii fududaysana waxaad samayn kartaa file inoo soo akhrinaya credentials-kan soo helno oo browser-keena u soo bandhigaya. haddii kalena waa iska diin kartaa. intaasi markaan soo dhamayno waxay noogu xigaa inaan online ka dhigno maadaama aynu kaliya tijaabinayno xilligan muhiim inoo maaha oo waxaan ku tijaabin karnaa local host. marka online laga dhigayna waxay hackers adeegsan karaan domain name iyo magac aad ugu dhow targetka si aan looga shakin karin oo loo mudo website sax ah. balse intaasi ka hor aan diyaarino qaabkeenu diri lahayn linkigani. halkaani waxay noogu qoran email aynu diyaarinay kaasoo qofka ku qancin kara inuu linkigan taabto. badanaa phishing attacks-kan wax lagu gartaa degdega. qofkii waxuu dareemayaa inay tahay inuu si dhaqso leh linkigan u raaco. iminka waxay noo qoran in account-kiisan qofkan suspension lagu sameynayo hadduusan linkigan taaban. Okay, let's say qofkii waa ku dhacay khiyaanadani oo linkiga uu taabtay. kadibna wuxuu soo baxay page-kan xogtiisa ayuu geliyay. tusaale ahaan test user 123 password-kiisuna 123 kadibna login u dhahay. sidaas ayaynu ku haysanaa credentialskii. sidii aan hore u saaxusnayna si aan qof ku shakin waxaa redirect lagu samaynayaa page saxda ah ee TikTok. kadib haddaynu soo furno faylkan ku save garaynay credentialskan soo helno waxaa halkan inooga muuqda emailkii iyo password-kan gelinay. waa khiyaano ay aad u saarantahay la sameeyo balse halis badan. si aad uga taxadirto khiyaanooyinka noocan ah ee phishing ahna waxaa ugu muhiimsan inaad adeegsato multi-factor authentication oo aad ku xidhatid Google Authenticator ama qaab la mid ah. habkani way adag tahay in la dhaafo maadaama uu sii weydiinayo xaqiijin dheeraad ah markaad login dhahdo. waxaa sidoo kale ka mid ah inaad taaban linkiyada aadan garanayn ee noocan oo kale ah. markastaba ka taxadir inaad raacdo linka aadan garanayn. ugu dambeyn muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan rajaynaynaa in wax badan ka baranay qaabka ay u dhacaan phishing attacks-ku. waana qodob aad muhiim u ah in dhalintu baraarugto halista phishing attacks-ka ayna ilaashadaan amniga accounts-kooda. marna ma soo martay dhacdo ku saabsan phishing attack nagula wada qaybta commentiga.